إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada darsigii saddexaad ee dowradii tafsiirka juz amma waxaan ka bilaabaynaa maanta suuratu al-kawthar. bismillaahir rahmaanir rahiim. inna a'taynaka al-kawthar. abda waxaan ku bilaabayaa hadhihi suuradatan bismillaahi ilaahi magaciisa allahi ar-rahmaan naxariista guud naxariisto ar-rahiim naxariista gaarna u naxariisto adoomihiisa muuminiinta. إنا أنجو بقى أعطيناك وحن كسينا نبي محمد الكوثر وبيجا كوثر أيام كسينا. سورة دان وحاليا سورة الكوثر وسورة مكية صدح آيات أيك كوابن تهاي لما أنت ذو لها لسان النبي عليه الصلاة والسلام وحين صدح هذا آيات وحي كوكلا سابسن تاي صدح موضوع وكلا دوان مد كوبات إله سبحانه وتعالى وحنبي يسوع شيء جيا وح أوسي نعمك أوسي قار كمده أيو حسوسنا. مدى لبات أما موضوع اللبات ما دام إلهي نعمده أوسي وحي كجوجهن أيا نبي الله شيء صلى الله عليه وسلم أو لا جربه ما دام إلهي نعمده ونعمه قضب كصدحات نحوي كون النبي عيبه عليه الصلاة والسلام أو عرو أو مارتي إن اسكودين إن عيبيان أو يدران أي إله وجوابه سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا أنه نبي محمد أو إباء أعطيناك وحن كسين الكوثر وبيك كوثر أيام كسينة فصلي أتوكو لربك ربك أتوكو وانحر ربك وحو جورع وهداد وح جورع يزيد إلهي درتي وجورع ووحكلاته وحو جورعين. إن شانئك متك كو عريسا أما عدو جاجع أما كعريسيني هو السجع أيا الأبتر مد بقعنا. سورة مركز سبب نزول كذا كسر دكتور حليل هذا mid kamid ah odayaashii Quraysh waa ninka la Aas ibn Wa'il. Aas ibn Wa'il wuxuu kamid ahaa odayaashii Quraysh ee dibka badnaa ee nabiga dhibay Ali sallallahu alayhi wasallam. rag khayr badan buu yu dhalay oo saxaaba ah sida Amr ibn Aas iyo Abdullah ibn Amr ibn Aas oo uu ahaa. Aas ibn Wa'il wuxuu kamid ahaa odayaashii Quraysh ee nabiga ceebeen jirtay mar walba. waxa la yiri nabiga Ali sallallahu alayhi wasallam markuu dhintay wiilkiisii Al-Qasim nabiga sallallahu alayhi wasallam wiilashiisii yaraan bay ku dhinteen. إبراهيم يا قاسم يا عبد الله ويلشي سيران بيكون انت قبلها أيا وهاري مركزي وحي باللابين إني يرهدان محمد ودبر قاعد محايا لي نينك أنا الملهين ويل اللهين وحي دي جرى مدبر قاعد واحد أحلى يا مجلس يو هبل اللي يلو أبترنا يو مجرو ودبر قاعد مركا كتب التفسير وحي شيئان إن نينك اللي عاص بن وائل سجوني أو عاديستي marka nabiga la soo hadal qaado soo ku jeesjeesay inuu yiraahdo warninka kan gablanka ah ee ilmalaanta ee wiilasha aanan dhalin maxaad ka haysan warkiisa mar dhow wasaw uu dhiman halkaas uu warkiisa ku gooy maxaa yeelay haduuna wiilal ka tagin wax uu maaragtay magaciisa sii raajinay ma jiro marka ninka kan maxaa isku mashquulinaysan marka asaga iyo kuwa la midku Ilaahay u jawaabay subhanahu wa ta'ala. Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka nabiga wuxuu xusuusiyay nicmo weyn uu siiyay oo nicamka uu siiyay kamid ah isla marka ayadaan wuxuu u sheegay waxa laga rabo nicmadaas uga wajahan qoladaasna Ilaahay uu jawaab. inna anagu nabi maxamed oo baa a'taynaka waxaan ku siinay al-kawthara wabiga kawthar ayaan ku siinay. kawthar aba tafsiir ayaa lagu tafsiiriyaa. tafsiir waxa weeye waa tafsiirka ibn Abbas radiyallahu anhu oo ah al-kawthar in lagu fasiro al-khayrul kathir min al-kathir bay ka imaatay. marka khayrka nabiga uu Ilaahay uu siiyay oo farada badan oo dhan buu tilmaamayaa ayuu leeyahay ibn Abbas radiyallahu anhu tafsiirkiisaas oo kamid tahay nabinimada oo kamid tahay maxaa la yiraahdaa kitaabka Quraanku Ilaahay siiyay nicamka farada badan oo Ilaahay uu galay oo dhan baa soo galay fi dunya wal aakhirah. tafsiirka labaadna waa tafsiirka Aisha radiyallahu anha oo oranayo al-kawthar wa wabiyaasha jannada kamid ah
ilaahay si gaar ah uu nabiga u siiyay calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii saxiix muslim ku maaragtay ku yaalay xadiis Anas radiyallahu anhu uu cadeynayo in nabiga calayhi salaatu wasalaam suuradan markay soo degaysay wuxuu yiri soo nabiga calayhi salaatu wasalaam bayna adhurina soo nabigu nala joogo ayuu qafwatan xogaa sida qof indhaha yara guud sidoo kale ama yara seexday oo kale ayuu noqday markaasuu haddana soo baraarugay asagoo dhoola cadaynayo saan ku niri buu yiri nabi allow waa adiga dhoola cadaynay maxaad u dhoola cadaynaysaa markaasuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu igu soo dejiyey suuradaas ayuu markaasuu akhriyay inna a'taynaaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar ila nihayat suura marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa fasiray al-kawthar tafsiirka xoogan waxaa weeye in lagu fasiro wabiga jannada in lagu fasiro ee nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa uu ku sheegay wuxuu yiri kawthar waa wabi ilaahay uu siiyey oo ilaahay ugu karaameeyay oo maaragtay biyihiisu ay ka cad yihiin caanaha ayna ka macaan badan yihiin malabka sida xadiis kale ay cadeynayso labadiisa dhinac waxa ku yaalo khaymado ama teendooyin luul ka samaysan labadiisa darfood ama labadiisa daan ama labadiisa gebi waa dahab meesha ay ku socdaan biyahana waa yaaqut iyo maaragtay qalin iyo macaadinta ugu qaalisan wuxuu ka caraf badan yahay miskiga ayuu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii mar ka cabaana mar dambe ma oomaya ayuu yiri sallallahu alayhi wasallam marka waxaa xoogan in lagu fasiro al-kawthar inna anagu nabi maxamed oo a'taynaaka waxaan ku siinay al-kawthara wabiga kawthar ayaan ku siinay maadaama ilaahay uu ku siiyay wabiga kawthar iyo khayr fara badan iyo nicmo fara badan uu ku siiyay maxaa kaaga aadan waa inaad ilaahay caabudid oo cibaadada u barax tirtid oo shirkina ka fogaatid fasalli utuko lirabbika rabbiga utuko wanhar u gowrac lirabbika rabbiga kaliya u gowrac marka halkaas waxa lagu laba cibaado ayaa la tilmaamay cibaadada salaada iyo cibaadada gowrac oo dadku inta badan ay sameeyeen jireen waligoodna ay sameeyaan kufaar quraysh haday marka sanamiyaal ay u tukadaan adigu rabbiga u tuko fasalli lirabbika wanhar hadii aad gowracaysid ilaahay dartii u gowrac in jinn wax loo gowraco ama wali loo gowraco ama aw hebel loo gowraco intaba lama ogolo ilaahay dartii uu gowrac fasalli lirabbika wanhar ilaahay غيركي wax loo gowracana waxa weeye ma banaanaba hilibka xitaa illa cuno fasalli utuka lirabbika rabbiga wanhar rabbigana wanhar u gowrac lirabbika rabbiga u gowrac inta kadib ilaahay wuxuu yiri inna shani'aka midka ku caraysan ama ka caraysiinayo labada waa lagu fasiraaya huwa isaga ayaa al-abtaru mid daba go'ay oo khayrka ka daba go'ay nabiga waxay ku tilmaameen inuu yahay gablan daba go'ay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegay in ayaga yihiin kuwa daba go'ay oo quraanka ilaahay waa ilaa hadda ku sheegaya habaarkooda iyo caydooda iyo meesha ay maaragtay ay mudanayaan sidii suuratu tabad aan ku soo marnay ninkaas waagaas fog dhintay oo ilaahay hadda la akhrinayo habaarkiisa iyo meesha ilaahay meel uu geliyay ama maaragtay meeshu mutaysta nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii wiilashiisa ay hore u dhinteen ma gablamin maxaa yeelay ummadaas muslimka ah oo dhan jiilba jiil iskala dhaxlayso ayuu aabba u yahay waxaa daliil qowluhu tabaaraka wa tacaala fi suurati al-ahzab النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أسقنا أبو يهي حاسسك سنة وأمهات المؤمنين وأنا قد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين نبي إلهي مقعي سور راجي وكاس ماركتي أدنك أيا لو حسيا الشهادة قف مركو سوق لي أيو كحسيا أقنك أيا لو حسيا خطبة أيا لو حسيا صلى الله عليه وسلم بالغها يا نبي عليه الصلاة والسلام أتباع ديسة إلى أيام أنت مقعي سالها يا أو هذا رجع عاصم بن وائل وليد بن مغيرة رجع النبي هيستوي لها هو قبل ماي أو كعيبيني أو أثر كودي يوحي كتير هو السجع يا الأبتر مد بقى أنا سأسأل لي الله سبحانه وتعالى سورة الماعون سورة الماعون أو أيضا تضوء ككوبا وسورة مكية وسورة دي كسود النبي عليه الصلاة والسلام مركو مكة وجوي قبل الهجرة هجرة ده أنتوا نسوه هجرون إنكار ومدينة ونسوه هجرون suuradani waxay ka waramaysaa calaamadaha lagu garto qofka aan xisaabta aan rumaysnayn calaamadaha lagu garto ayay cadeynaysaa bismillahir rahmanir rahim ara'ayta alladhi yukaththibu bid-din ara'ayta ma aragtay ama ka waran alladhi ki yukaththibu beeninayo bid-din xisaabta bid-din xisaabta iyo jazaha iyo abaalmarinta eebe inay jirto midka beeninayo ما أركتي أما كورم أما محد كأكتي
calaamadihiisa marka halkan lagu sheegaya fadhalika kaasi alladhi kii weeye yaducu riixayo alyatiim agoonka riixayo ama agoonka tiqantiqinayo taqantiqin waxa la yiraahdaa qofka marka intii qadaadka laga qabto sidaas loo taqantiqiya ayaa la yiraahdaa fadhalika kaasi alladhi kii weeye yaducu riixayo riixitaan saas lagama wade xaqiisi buu yududsiinaya dibna uu geysanaya fadhalika kaasi alladhi kii weeye yaducu riixayo alyatiima agoonka oo tiqantiqinayo oo dhibayo ama hadal ha ku dhibo ama gacan ha ku dhibo ama xoolihiisa ha qaata ama wax wuxuu doonaba ha sameeyo walaa yaxudu ana ku boorinaynin ama ku tirtirsiinaynin calaa طacaami lmiskiin miskiinka quudintiisana aan dadka ku tirtirsiinayninoo aanan ku boorinaynin fawaylun halaag lilmusaliina kuwa tukanayo ayuu usugnaaday lilmusaliina kuwa tukanayo ayuu usugnaaday aladiina kuwaasoo hum ayagu can salaatihim salaadooda saahuuna ma aragtay ka mashquulsanoo aanan warba u hayn aladiina kuwaasoo hum ayagu yuraa'uuna dadka istutusinayo wayamnacuuna reebayo oo diidayo almaacuuna maacuunta diidayo ama waxa dadka ay isugu kaalmeeyaan oo dhan diidayo suuradda marka ilahi subxana wa tacala wuxuu ku sheegay nabigiisu wuxuu ku leeyahay ara'ayta waxaa la yidhahdaa qofka markii baraarugiisa in lasoo baraarujiyo oo dareenkiisa lasoo jeediya la rabo sida qur-aanka marar badan kusoo aroortay ma aragtay alam tara maxaad ka og tahay ayaa la leeyahay kadib baa loo sheegay ara'ayta ma aragtay ama ka waran alladii kii yukadibu beeninayo bidiini xisaabta iyo abaalmarinta kadib ilahi wuxuu sheegay marka kaas calaamadihiisa waxaa ka mid ah in dadka laba dhinacba ilaahay uu ka tusiyey mid horta xisaabta ilaahay ma rajaynayo midda labaadna xiriirka dadka uu la leeyahay waa dulmi dadka nugul masaakiinta agoonta iyo dadka danyarta ah ee nugul ayuu dulmiya dad waxaa jira dadka ka liita dulmiyo haddaad kuwaas ka mid tahay inaad ilaahay ka baqdaa loo baahay subxana wa tacaala hadduu qof guriga kaa shaqaynayo shaqaalaha inaad dulmisid maaha xadiis gooni ah kusoo aroortay oo lasaga digaya in la dulmiyo dadka shaqaalaha iyo dadka masaakiinta iyo agoonta ilaahay marka agoontu gooni u xusay maxaa yeelay agoonka xaqiisa wax u doodaya ma laha aabihii ma joogo looga baqayo walidaalika ilaahay baa subxaana wa tacaala qofkii dar yeelana nebigu wuxuu yidhi ana wakaafilu lyatiimi kahaatayni fi ljanna aniga iyo maaragtay yatiimka qofkii kafaalad qaado saas jannada isku meel baan ka gelinaa buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam kahaatayni fi ljanna qofkii riixana meelo badan baa lagu soo sheegay qur-aanka ka mid ah iyo axaadiista ilahi subxana wa tacaala inuu ciqaab aliima uu diyaariyey marka kaas calaamadihiisa aanan xisaabta aanan rajaynin dadka qaarkood markay dhaqmayaan waxaad moodi inaynan xisaab ka dambaynin waa dareemaysaa qofka inuu xisaab ku fikeraynin ama waa gaal oo maba aaminsana ama waa munaafiq faasiq ahoo aakhiradii oo dhan baa la ilowsiiyey iyo xisaab inay jirto markaasuu wuxuu raba samaynaya intuu dad waxaa ka mid a kuwa dadka intay xirxiraan ciqaabo oo laayo oo dilo waxaa ka mid a dadka maxaa la yidhahdaa ii sheeg dadka masaakiinta ah dadka maaragtay xoogga lehna ixtiraamo dadka masaakiinta ahna ku gabood falo fadhalika alladii yadcu lyatiim ilahay marka sifadaas ayuu sheegay koobaad midda labaad kuma booriyo quudinta miskiinka quudintiisa kuma booriyo dadka marka waa inaad qofku uu noqdo qof damiir leh oo nool oo damqanayo oo dadka masaakiinta gacan qabashadooda dadka ugu yeerayo kadib ilahi subxana wa tacaala wuxuu sheegay calaamadaha qofka xisaabta aana aaminsaneen inay ka mid tahay in uu salaadii maaragtay uu seegseego halaag baa usugnaaday yidhi ilahi subxana wa tacaala kuwa tukanaya ayuu halaag usugnaaday ama waadi naareed weylun waadi naareed ama halaag ayaa wuxuu usugnaaday kuwa tukanayo ogow kuwii ka tagay kuwaas lagama hadlay maxaa yeelay kuwa warkooda uu dhamaaday laakiin way tukanayaan maca dalika waadi naareed baa usugnaaday ama halaag baa usugnaaday calaamadahooda waa maxay aladiina hum can salaatihim saahuun salaadooda ayay ka sahwinayaan ay ka mashquulayaan soomada garan markaad mufasiriintu tafaasiir badan bay ku fasireen culimada qaar mufasiriinta ka mid ah waxay yidhaahdeen waa kuwa salaada markay dadka la joogaana tukado markay dadka maqan yihiin aan tukado dad hadda saas ah jiro Soomaali ah oo muslim ah oo walaalaheen ah oo dadka markay la joogaana tukanayo marka kalena iska deynay waa koo waxa kale lagu fasiray waa qofka wax kuleel in ku hayn salaad haday ka tagto kama murugoonayo kama nadaamonayo haduu tukanayna si maaragtay khushuuc iyo arkaan uu ilaaliyo uma tukanayo haduu tukanayninna hadii kale ka tagta ama ay si u dhaaftana kama nadaamonayo
hadday dhaaftana wuu iska daynaya midda kale laga yaabo inuu iska tukado waxaa kaloo lagu fasiray waa kuwa salaada dayaco waqtigeeda dayaco oo duhurkii bay casarkii tukan casarkiina maqribkii bay tukan maqribkiina cishaha agtiisay tukan danahooda markay dhamaystaan ayay tukan soomaalida hore waxay dhihi jireen kullu shay'in bacda salah saasa yaa ahayd sida asalka alladina kuwa hum ayagu can salaatihim saahun ayuu ilaahay sidoo kale calaamadooda waxaa ka mid ah waa kuwa istutusinayo istutus camalkay qabanayaan oo dhan camal istutus ku dhisan weeye sidoo kale ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegay calaamadahooda inay ka mid yihiin kuwaas xisaabta aan aaminsaneen inay manciyaan dadka waxay isku saacidaan maacuunta ayay manciyaan maacuunta culimada qaar waxay ku fasireen zakada waajibka ah laga wadaa macnaha zakada ma bixiyaan ibn mas'uud abdullah ibn mas'uud radiyallahu anhu asaguna wuxuu ku fasiray in maacuunta laga wado sida faaska iyo misaarta iyo baadiyaha marka la joogay weeye moogta dalowga biyaha lagu soo shubtay iyo wadaanta iyo wax la midka ama cusbada iyo maaragtay caleenta iyo dabka la kala qaatay iyo waxyaabahaas yar yar oo dadku isugu kaalmeeyaan marka qofka waxaas manciyo asagana wuxuu ka mid yahay kuwa maaragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay inayna xisaabta inaan marka looma baahna qofku inuu uu manciyo waxyaabaha noocaas oo kale ta ara'ayta ma aragtay alladhi ki yukadhibu baynana bid-diini xisaabta baynanayo iyo abaalmarinta ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhalika kaasi calaamadihiisa waa maxay alladhi ki weeye yad'u riixayo ama taqaantiqinayo al-yatiima agoonka ولا يحض أنا كبورينين على طعام المسكين مسكين كقودين تيسا أنا دتك كبورينين فويل هلاك للمصلين كوا تكنا يعيو سجون على الذين كواسو هم أيجوا عن صلاتهم صلاة دودة ساهون كمشغول أيو أو ما أركتي قافل كأهو ما أركتي أما ورب وهينين أما صلاة هضعيفيان أما مركي ربانها تكذا مركي ربانها كتجان الذين كواسو هم أيجوا يراؤون دتك استوتسناي عمل كمرك تتصل هدو كان إحجاله وأرن خطر وإله سبحانه وتعالى ما قبله ويمنعون وحيريبيان الماعون وحل سوق المية معون توحل غفة سر أو في عوحوي ووحول بقول سوق المية دتك سوق المية زكاة هالنقطة صدقة هالنقطة سيد عكرمة أو كم ده مفسرين تتابعين توقف سري وحقوير وحيابها يرى دتك أي كلا درسك أي كلا أما هذان سيد عصبة إسي كوب إسي caleen isi iyo waxa la midka marka gabadha waxa loo baahan yahay inaynan u diidin dadka dariska waxyaabaha soo kaleete maxaa yeelay halkan ay ku dhacaysaa wayamnauna almaa'una ku dhacaysaa iyo ama sadaqaha noqoto ama gaarigaada u sii qaad ha noqoto ama walaalo waxaan ii soo qaba ha noqoto wax walba dadka isugu kaalmeeyaan ayaa soo galayso oo ugu weynta zakada oo ugu yar yahay waxa ugu yar oo la isugu kaalmeeyo suuratu quraish bismillaahir rahmaanir rahiim li ilaafi quraish suuradaana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uga hadlayaa quraish oo ah qabiilka nabiga kaleey salatu wasalaam oo makal mukarrama deganaa oo nabiga kaleey salatu wasalaam laga soo saaray nabigana la dagaalay sallallahu alayhi wasallam ayuu ilaahay uga hadlayaa li ilaafi quraish ka caadayeelashadoodii awgeed ilaafihim ka caadayeelashadoodii ay ka caadayeesheen rixlat ash-shitaa'i xagaaga safarkiisa was-sayfi iyo jilaalka safarkiisa maadaama ay ka caada yeelanayeen ilaahay marka subhanahu wa ta'ala wuxuu ku bilaabay suurada laamkaas oo laam xarfu jar waxa weeye dadka naxwaha way yaqaanaan wax inuu ka horeeyo uu ka tacalluqa ama wax inuu ku tacalluqa ayaa la rabaa marka culimada qaar waxay dhaheen waxa lagu tacallujinayaa suurada ka horeyso suuratul fiil alam taro ayuu ilaahay wuxuu uga soo qiseeyay qoladii asxaabul fiilka ee soo weerartay makal mukarrama maroodiga watay iyo meel ay ku dambeeyeen ayuu ilaahay uga qisay marka meesha ugu dambayso ilaahay wuxuu ku sheegay faj'alahum ilaahi miyuna ka yeelin ka asfin ma'kul sidii balla daaqay oo kale muxuu ilaahay sidaa u yeelay li ilaafi quraish ka caada yeelashadoodii iyo isku ururkoodii awgeed ayuu ilaahay sidaa uga yeelay halka waa lagu tacalujiyaa waxaa kaloo lagu tacalujin karaa oo sida ugu fiican ah in lagu tacalujiyo oo lagu xiro falyabudu rabb hada albayt see loogu xiraya marka li ilaafi quraish ka caada yeelashadoodii awgeed ilaafihim ka caada yeelashadoodii ay ka caada yeesheen rixlat ash-shitaa'i xagaaga safarkiisa oo xagga iyo yaman ay aadi jireen was-sayfi iyo jilaalka safarkiisa oo xagga iyo sham ama suuriya iyo urdun iyo falastiin iyo ariga hadda ay ku yaalaana ay u safri jireen ay ka caada yeesheen
oo ilaahay uu ku nabadgeliyey subxaanahu wa tacaala falyacbuduu ha caabudaan arrimahaas ilaahay uu siiyey owgiis ha caabudaan rabba hada albeyti beytkan rabbigiis ha caabudaan falyacbuduu ha caabudaan rabba hada albeyti beytkan rabbigiis ha caabudaan oo kacbada ah alladii allahaasoo acamahum ka quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey wa aamanahum ka maaragtay ka aamin yeelayoo ka nabadgeliyey min khawfin cabsi suuradda marka waxay la hadlaysaa quraysh waa qowmkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u dhashay oo makal mukarama deganaa waxaa caadadooda ahayd inay u safraan horta magaalada makal mukarama meel beer laga beerta ma ahan meel webi lahna ma ahan wuxuu ilaahi subxaana wa tacaala uu ku karaameeyo quudka uu ku siiyey oo noloshooda dhan ay ku salaysneed ganacsiga marka marna waxay u safri jireen xaggaa iyo shaam marna waxay u safri jireen xaggaa iyo yaman ganacsigaas safarkaas ay galayaanna ilahi waa ku badbaadiyey subxaana wa tacaala oo qabaa'ilka carbeed ay sii dhex marayeen oo dhan waxay dhihi jireen quraysh yaanan wadada loo istaagin yaanan la dhibin waa nimankii beytka ilaahay hayay sharaf iyo karaamay dadka ku dhex lahayn sida ilaahay uu xusay subxaana wa tacaala awalam yarow anna jacalna xaraman aaminan wayutakhatafu nnaasu min xawlih miyayna arkayni inaan dhignay xaram aamin ah meel aamin ahoo xaram ah oo maaragtay halka qabaa'ilka kaleete la kala dafayo oo la weerarayo oo xoolahooda la dhacayo ayaga waxaa lagu xushmayn jiray meeshan ilaahay uu dhigay marka ilahi subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay ka caadayeelashadoodii quraysh ay ka caadayeesheen inay safraan safarka xagaaga oo xaggaa iyo yaman u safri jireen iyo safarka jilaalka oo xaggaa iyo shaam u safri jireen oo ilahi subxana wa tacaala uu ku badbaadiyey awgeed oo noloshooda dhan ay ku dhisan tahay waxaa laga rabaa marka maxaa laga rabaa maadaama ilahi uu ku badbaadiyey oo uu ku badbaadiyey beytkiisa inay kuwii deganaa yihiin awgood falyacbuduu ha caabudaan rabba hada albeyt rabbiga beytka kan iska leh oo kacbada ah alladii allahaasoo acamahum min juucin ilaahayga markaa ka quudiyey gaajada ilaah gaajuu ka quudiyey oo waxa weeye gaaja meesha ugu dhiman lahay xoolona ma lahan waxaa weeye ii sheeg xoolo badan ay raacdaan ay tabcadaanna mayna lahayn oo beer ay beertaan iyo webi iyo waxay beertaanna mayna lahaan jirin marka alladii allihii acamahum ka quudiyey min juucin gaajo wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfin cabsi taasuu ilahay xusuusinaya suurat alfiil markaan u tagnana waad arki doontaa ilahi subxana wa tacaala waxa uu ka badbaadiyey marka ninkii abraha ahaa iyo ay soo weerareen oo ay rabaan kacbada inay burburiyaan ilahay siduu uga badbaadiyey liilaafi qurayshin marka liilaafi quraysh ilaafka waxaa la dhaha marka ka caada yeelashada waa ilfiga iyo ulfada iyo qofka inuu waxaan uu maarata caado uu ka yeesho maxaa la yidhaahdaa uu joogtaysto marka waxa kan ay ka caada yeesheen oo noloshooda ay ku dhisneed oo ganacsiga kan marna yaman u baxaye marna shaam u baxaye owgiis ilaahigood ha caabudaan marka waxaa lagu xirayaa falyacbuduu liilaafi qurayshin quraysh ka caada yeelashadoodii awgeed ilaafihim ka caada yeelashadoodii ay ka caada yeesheen rixlata ashitaa'i xagaaga safarkiisa iyo wasayfi iyo maaragtay jilaalka safarkiisa oo xaggaa iyo shaam u aadi jireen inay ka caada yeesheen oo noloshooda ilaahay subxana wa tacaala uu ugu dabaray falyacbuduu ha caabudaan rabba hada albeyti rabbi beytka kan rabbigiis ha caabudaan beytka kan rabbigiis ha caabudaan falyacbuduu ha caabudaan rabba hada albeyti beytka kan rabbigiis ha caabudaan alladii allahaasoo acamahum ka quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfin cabsi ka nabadgeliyey oo qabaa'ilkay iska dhex marayaan meel walba ayay marayaan waxaa leeyahay waa raggii kacbada ilaahay hayay yaana la dilin marka ilaahi subxana wa tacaala intaasoo fadli u galay ha caabudaan oo ha ka tagaan ayuu ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa darsigii tafsiirka qur-aanka kariimka ee juz cama darsigii saddexaad jazakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق.